qaaday maxaa la yidhaahdaa Somali state oo dhali doona Ethiopia ka dalka soo gala waxaan u strategy Ethiopia ku sameeyeen ma dowladda Masar baa soo abaabulaysa waxaan waxay ka imaanayaan dhowrkii asbuuc la soo dhaafay faaqayntii in wadnay baa sida sheegaysa ma aha marka wax caawa iska yimaaday oo aynu ku waabarisanay saaka iyo shalas wax ma ahayn oo wax muddooyinkii dambe la soo dhaafay oo inuu ka sheekeynay waxaan marka hore ballan in la wadaago bal muuqaalkan ila daawada aan idin sheegay muddo ka hor in waxa dhacay maanta taagan waxaa muuqata in dagaalkan uu yahay mid uu ka dambeeyo qorshe lagu doonayo markaas in ciidamo badan Ethiopia ay soo galaan gudaha dalka Soomaaliya aragtida maalinkan aan qabay oo idin lahaa Ethiopia ku dalka way soo gali doonaan dagaalkana waa dagaal aad moodid in looga shaqeynayo lagu doonayo Ethiopia ku dalka soo galaan maysan ahayn aragti aysan dadka aysan wada arkin laakiin wax black and white ah banaanka si yaalay ah waa inuu maanta waxa dhacaya aynu ka qiyaas qaadan karno maxay bari inuu keenayaan waxa markay isweydiin mudan maxay dowladeen uga aamusnay ilaa iyo markaa maxay si ilaa hadda uga aamusnaa raalli bay ka tahaa inuu Xasan Sheekh Maxamuud raalli buu ka yahay wuu ku qanacsan yahay in dalka iyo waliba koonfurta Soomaaliya oo dhan Ethiopia ku soo galaan oo ay qabsadaan miyuu doonaya oo maxay aragtiisa ma garanayo boqosho wax ka ogaa ma garanayo raalli buu ka yahay ma garanayo ilaa aamusan yahay cid garta waxaa jira dad leh dowladda hal lagu garab istaago qadiyadda Ethiopia ka ee dalka ay soo galayaan dowladda hal lagu garab istaago dad baa